السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وكما قال عليه الصلاة والسلام خير الناس أنفعهم للناس. أما بعد مركب بعض حان سلامينا uguna hambalyeynayna tahniyadan quruxda badan ay soo sameeyeen dhammaan maamulka ka shaqeeyay ka soo qayb galayaasha bacda salaam Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ka hadlay adduunka wuxuu abuuray iyo aadamaha wuxuu abuuray wuxuu leeyahay ilaahay markuu adduunka abuuray imtixaan buu abuuray adduunka waxa ugu weyn ee la abuuray waa samawaadka waa sida maaragtay ardada yaa looga dhigaa mas'uul baa la yiri waxa ka soo culus baa la yiraahdo si macnaheedu ugu culus diinta waxa la yiri kolkii adduunka la abuuray samawaadka iyo ardada idinka ugu waaweyn qaada amaanada idan oo gudta haday noqoto waajibaadka ilaahay haday noqoto adduunka in si fiican loogu noolaado haday noqoto in fasaadka laga hortago haday noqoto akhlaaqda wanaagsan in la fidiyo samawaadka iyo ardadu way diideen waxay dhaheen ilaahu amaanadaada ma qaadi karo sidoo quraanku inoo cadaynayo wax badan dad badan oo kale la weydiiyo la yiri amaanada yaa qaadi waxa yiri bilaadanki baa soo badooyay ana amaanada qaadi oo gudan xilli ay naanahayn naftan iyo jasadkan ay naan lahayn oo arwaax ahayn oo caalamul darag la yiraahdo qof bilaadanku uu soo maray yaynu ballan qaadnay ilaahay oo inuu uweyna yiri alastu bi rabbikum deedna maxaynu niri qaalu balaa rabbigi soo mihi waa tahay ahaanshaada ahayn oo iska daabaa la yiri qof kasta oo muslima iyo qof kasta oo bilaadan amaanadaas ilaahay u dhiibtay laba qodob baana la sheegay inay u qaadeen amaanada koow inay yihiin dad dulmi badan soo quraanku noo cadaynayo laba inay yihiin dad jaahil oo dambeeya ka taanagu isku wadna inaan adduunka ugu horumarsanahay xoolaha iyo samawaadkan iyo ardadan aan hadlaynaba amaanada diiday innagaana iskor dhignay amaanada marka maxay tahay amaanadaas waxa weeye koow waxa ugu horeeya oo ugu muhiimsan ilaahay diintiisa gudashada waajibaadka ilaahay xuquuqda ilaahay kugu leeyahay ilaalintiisa muxaarimta ka dheeraanshahooda laba waxa wajacalnaakum khulafaa al-ardi ilaahay ardada khaliif baa la inooga dhigay inaan si fiican ku noolaano oo wixii fasaad aan ka hortagno oo wixii xumaan aan ka degtoonaano oo ardada nin walba xaq ilaahay ka siiyay kaliya uu ka yeesho oo wadooyinka aan la xidhanin oo dadka si fiican lagula noolaado amaanadaas aynu qaadnay waa marka koobaad وأمرك الله بعد وحويان إلهي وحياله ونقول أدون صدي كلكم إلهي عبادتي سؤسود جي أو حلا نوع أبو ريا جنك ينسجا أيالك بصاري ولقوا عسلية وثقيلين بالله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بإله إله عبادة وحويان إلهي إلا بتواجبات كيسة محارم تيسن اللي قدقوا وحاين أمضى كنا هاي إن بالآلن كنا هاي إن الدنيا ذا كجدونا هاي إن الله كلوا أنت كليا أنت قفك أدو جرام وجودن وايو إلهي وحقوق الشيء إنه يهي الدنيا ذا كله بل أيها كسر حبالي حوي مركب أخواتي وأخواتي إخواني وأخواتي مضح هي مسؤول بواجبات بين الصار مسؤول هي مضح دينتم من الشيء جوا علمي عمل ليدا قف والبا واجبات إلهي إنه قاطع إنه حرام تكدك تنادو واجب صارنوي قفنا قف وكيلو جماعة حوي مركب كوبات قفكو وحي علماء كم مثالي وحي دهان استقم قفكو إنه توصنا أبوه الرأي فاستقم كما أمرت النبي وكيل الله كل كل له لأن الشجر الأعوج بالدها لا يستقيم ذله جد قالوا حركي سمو توصنا وما يقفل بنفتي صورتها قبل لابو جد قالوا عن حركي سمو توصنا هيو وأنا نفتي أن قبل لونه وأمانة إلهي عن حفظ كذا إلى علم هذا إيا كمرجس هذا وأنا نتاجنا قضب كلا بعدين كدر الله وحويه وحينو نهاي ضد مسلمين وحبينو نشيء جينا أمانة لبعض بينو سصارينو أمانة ده إلهي مركي لقى صوتك طول بعض بينو صار وحنا ردت كإنك أقول علينا هنا درها جود إنك أقول علينا هنا نوري كحومن كا يكمسؤول كا ضمانتين وحويه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي جدّجان وحنونا الرعاة وحبالي نقول إلالية وحبالي النصاري جدّجان آخر ولا نود ويدين هيا
nabiguna wuu sii faahfaahiyey ninku wuxuu mas'uulka yahay calayhi salaatu wasalaam ninku wuxuu mas'uulka yahay wuu sii faahfaahiyey gabadhu waxay mas'uulka ka tahay waa la sii faahfaahiyey waxa weeye marka arrinta labaad aan qaadnay ee mas'uuliyaddaana waa inaan iyadana gudano waa inuu casharku isku meel inoo joogo ka weynu inay saarantahay waa inaan loo fahmin ka weyna waa inuu asaga laftiisu u fahmin inuu yani keligii wixii saaran yahay waa inaan ilaalino xuquuqda inagu aan isku leenahay kow qofka bini'aadanka ee muslimka ugu yaraan waxa lagu leeyahay 10 xaq koobaad ilaahay baa ku leh waqadaa rabbuka alla ta'budu illa iyaahu xaq labaad waxa ku leh dadka waalidka iyo kuwa saaxiibada la oo saaxiibul jambi la yiraahdo waa xaq aad u weyn aad u culus haduu bukoodo inaad soo booqato haduu baahdo inaad wax siiso haduu maaragtay uu gaajoodo inaad wax siiso hadii uu ka hor yimaado inaad salaanto waa taas weey xaqa aan ilaalino oo jacaylka iyo maxabada iyo mawadadu waxay ku beerantay ilaahay baa inoo sheegay saxaabada rasuulkana waa lagu amaanay waxa la yiri kolkii laga hadlayay jacaylkooda markii la sheegay ruuxamaa u baynahum dhaxdooda aad bay isugu naxariistaan balay gaaladana waxa la yiri aad bay ugu adag yihiin marka waxa weey walaalayaal jacaylkeena iyo mawadadeenna iyo midnimadeena inta aan ilaalin karo iyo inta aan adkeyn karo aan adkeyno waa midda koobaad aan wax ku noqon karo weeye waa midda labaad aan wax ku noqon karo weeye waa midda saddexaad aan wax ku noqon karo weeye inaas jacaylkeena iyo inaga adkeynteedan iyo qof walba xaq lagu leeyahay inuu guto inuu isku dayo kelimada ugu dambaysan ee oranayo waxa weeye waxa la daacayo ee aha xiqdiga iyo xusudku waxay yareeyaan amalka qofka bini'aadanka way yareeyaan akhlaaqdiisana way yareeyaan xasanaadkiisa ay cunaan waxa weeye qofku haduu xumaan sameeyo ilaahay baa inoo sheegay waa inuu wanaag ka dabageeyo wanaaguna wuxuu ka bilowdaa dalaaqatul wajhi qofku inuu yahay qof waji furan oo dadka u qosla oo dadka salaama oo dadka u taaneedeeyo oo midku dib ku yimaado iyo midka taageer mid walba sidiisa koob waa xaflad way noo sii socon doontaa insha Allah aayadaha quraanka ay inoogu furan tahay madaxdii baa joogta dhalinyarada soo qaban qaabisa dhamaantoodba waan salaamayna si akhlaaq iyo isluub ay ku jirto oo quraanka meesha lagu sheegay ilaahay wuxuu leeyahay kolku quraanka ka hadlayo wuxuu leeyahay qofka mu'minka waxa lagu yaqaanaa kolkii quraanka korkiisa lagu aqriyo waa inuu qalbigiisu waa inuu suuraysto ilaahay iyo qiyaamaha iyo culayska waxa saaran waa inuu suuraysto taas la inaga rabaa hadaan mu'miniinna ee waa inaan noqon wayda qiila lahu taqillaha akhadatul izza fahasbu jahannam kolkii la ilaahay ka cabsado ma caroonba qalbigeena aan dajino si fiican aan isu dhageysano khudbadaha la inoo soo jeedin doonana aan si fiican u dhageysano aan weelayna waxa la inoo sheegay waxaan maanta xusayna ma aha in